rabaa inaan ururka ardaydan haddana wax ka barataan kaga warbixiyo intay yihiin sida ay yihiin markii koowaad lagu bilaabay 2012 baan bilaabay anaga raggii ugu horreeyay ka mid ah Cabdicasiis Suleymaan iyo ardayda sanadka joogta iyo Haashim intaasaan nahay iyo diidiyo waxaad muddo dadkeena badidood inaynan aaminsanayn qabyaaladu inay tahay racism ama discrimination su'aal baan weydiinaya markaa ma tahay qabyaaladu marka waa laga yaabaa xagga magaca Soomaaliga maadaama aanu erayo badan laga yaabo inuu dadkii luqado kale ku dhiganayaan yani eraygiis saxda ah sax laakiin haddii mararka qaar marka takoor haddii takoor ka saabsan sheegayo sax midab oo kale waa laga yaabaa dadka qaar inay marmar ku dareero nidhaahno dad gaar meel gaar ah way ka dhacdaa laakiin laba qabiil istakooriyo waxa laga yaabaa inay xaggii kala iyo midabkii iyo waxyaabihii kale guud iskaga siiyeen laakiin dabcan waa nooc takoor waa takoor ama hay'adaha ku takoor exactly takoor aan wax barno qabyaaladina annagu waan iska soo shan tobankan qof markaan isku nimi annaga dhexdeeda rabnay horta inaan qabyaalada iska jirto waanu leenahay intaasoo kala luqadood oo kala duwan baanu ku hadlanaa 15 iyaga laftirkooda qabiil walbana wuu nagu jiraa walaaltinimada iyo jacaylka naga dhexeeyana runaantii dadka reer Istanbul marka qaar way yaabaan waayo waxa isku kaya keenay waxa weeye inaanu isjeclaano iska ilaalino xumaanta ay leedahay labadaas annaga markaan tii samaynay baan jeclaysanay niyo haddii la heli karayo inaan sii ballaalino xubnayaasha kadib waxaa iman karaya dhalinyar fara badan oo iyaguna waxaan necab aan jeclayn kadibna runaantii wax ka qaban kara kadibna sidii baan anagu samaynay baraarujin wacyigelin baanu samaynay inaanu dadkii gaarsiin inaanu samaynay inaanu faafino sida maanta ku nimi magaalooyin hore aan u tagnay baa jirtay Istanbul dhowr jeer baanu ka qabanay program aanu samaynay baa jirtay kili dadkiisaan u sheegnay walaalayaal nagu yani ma aha nagu bas wabira ma hayna laakiin qabyaaladii iyo xumaantii iyo jahligii aynu la wada dagaalanto haddaad taa la dagaalantida maanta taa meel dhigtidna walaalo yay faa'iido u noqonaysaa kow naftaada faa'iido u noqonaysaa waayo adigu bulshada maad ka soo jeedaa beri ka maalin arday baa tahay asxaabba kugu tacalluqda hooya kugu tacalluqayso kulli xaas baad yeelanaysaa ama aabbo carruuraad dhali doontaa yani adiga qudhaad iyo bulshadan samaysmi doontaa intaynan oo maanta ka wada saafi noqonay markaynu beri ku noqono dhulkeennii aynu intaynaba aynu qabyaalada meel ka dhigno aabba markuu inoo yimaado adeera markuu inoo yimaado qabyaalada inooga sheekeeyo aynu raano aabba iyo adeero iga raali noqda laakiin anigu wax qabyaalada iyo xumaanteeda kuma jiro idinkugumana taageerayo intiinaynu niraan ilmiheen inaynu ku abaabino aabba Soomaali waa mid yaa tahay qabiilkaaga geli wadhaada Soomaali baan ahay isku mid baad ku hadashaa haddii intiini taa helo waxaan hubaa bulshadeenu inay korayso dad badan oo isjacaylkeena keliya ku farxay oo dhahay doonaan inaan idinku biirnaan doonayna inaan sidiinoo kale aaminaan doonayna aan jecelahay baad iman doonaa sidaa daraaddeed markuu waraysa naftaada u wanaagsan tahay walaalo inaad horta waxaan ka dheeraatay kana fogaatay wax walbood samaynaysiina aad ka fogaatay biyadu wayna saameynaysaa runaantii waayo markaynu dhulkeennii ku laabano wareer hebel baa tahay waa lagu dhahay u dabaaldeg maalinta kowda luuliya maaha war maalintan kale u dabaaldeg waa lagu dhahay adigu heesooyinka noocaas aad leedahay waa lagu dhahay waxa haddii adiga naftaadu ay awood leedahay waad iskaga dhinac baad ka noqon karaysaa waad ka saafin u noqon karaysaa taasina adunku ku wanaagsan tahay adun baana meel ku gaari karaya runaantii marka wallaahi yani waxyaabaha ugu badan oo runaantii annaga sidaa iyadaba sidaas ugu kaya keenay nagu dhiirigeliyay waxa weeye inaanu jeclaysanay inaanu walaaladeeyo aanu soo gaarsiino idinla nimaado maxaa anaga hogaamiye fiican weli weyne muxuu qabqabin noogu soo baxay orisaan waxaa intaan la isweydiin ka hor dadka xareeg soo baxayaan abti dhul aan la falin laga shaqaynin geed waxa weeye qorxoon oo adag oo har leh inuu kaaga soo baxo ma ka filaysaa bulshada xun ani saas jawaabta fudud ila muuqataa
hogaamiye waxay ka imanaya cirka ma kasoo dhacaya marka bulshada wareersanay xun qaflada ku jirta xun inaan dhahana waxa weeye inaan ku tarax tagay oo qatar laakiin waxaan maleynayaa iyada soo saartay waxaan amreeyay meena bulshada ma oga wax yarto isan ogin meena meesha u socotay isan ogin saasa ma maleynayaa marka way wareersan tahay marka dad wareersan bay soo saaraysaa dabcan marka waxaan maleynayaa haddii la doonayo anu ma garanayo waxaan noqon doona 800 tuuro waxaan noqon doona 500 wadan maaqaan muhiimadeeda runtii maaha ismana mashquulin sababta wax la ma sameynayso ugu dambeyn waxaa tahay Soomaali ku nool meeshuu ku nool yahay bas waxaa intaas ku soo gabagabeysaa marka sidee ku noqon kartaa qof qiimo leh sidee anaga xaalkaan joogno loo bedeli karaa xaalkaan joogno berri inuu bedelmayo anaga muuqato markii idhaahda berri uu bedelmayana waxaa maleynayaa inuu riwaayad dalabanayo waqti qaadanaysa wax in la burburiyo aad loo fuudahay hal maalin baa lagu burburi karaa laakiin hal maalin loo haysa waqti qaadanaysa hal yiri gandi ma tooxo kamarada saana kartaan waa taqaan ka waxay yiraahdeen gandi maxaa ku xiran maxaa waa awlati waxaan Mareykanka ay maantay kaasoo yiri waxa inta ku xiran waa maxay garawaadka saamigtaad baa kan oo yiri baagtaad baa yiraahdaa dawada ma waxay ina wanaagsan fiicna simtuna waa anaga noo qaastay qof walba ayaa damaanta Jeffreygas aw la khatib bay ku xiran tahay dabiiciga umada marka meesha la aado qof walba ركبة إنجنيرة ركبة صوبرت نقشين تاني وكذا سيد كذا ركبة إنشاء من الجمر كفر بينه كعاوية ضربي سيد